waxaa maanta magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari Kenya ka dhacay shir aan loo kala harin kaas oo ay beesha Uwaasnoor u qabatay beesha Maxamed Zubeer si loo taageero looguna sheego qofka musharaxa u ah kursiga xildhibaannimada ee koonfurta Wajeer kaas oo loo soo sharaxay Axmed Cali Weerar oo isagu in muddo ah siyaasadda deegaanka ku dhex jiray kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen goobjoogna ka ahaayeen waxgaradka iyo cuqaasha beesha Uwaasnoor ayaa waxa lagu marti qaaday dhammaan qabaa'ilada iyo jilbiyada kala duwan ee ka kooban tahay beesha Maxamed Zubeer si ay kor ugu soo qaadaan codkana loo siiyo musharaxa xildhibaannimada kursiga deegaanka Wajeer Axmed Cali Weerar waxaa shirka hormuud ka ah Jeermanka beesha Maxamed Zubeer ahna u qaabilsanaha dhanka siyaasadda isku duwaha ololaha doorashada ee lagu taageerayo Axmed Cali Weerar nabadoon aadan Yuusuf Sagaar ayaama waxaa sidoo kale madasha ka hadlay cuqaal fara badan oo ay ka mid yihiin ugaasyada iyo suldaanyada ay ka kooban yihiin beesha Maxamed Zubeer nabadoon aadan Yuusuf ayaa ku nuuxnuuxsaday in ay Uwaasnoor midaysan yihiin sidii loo taageeri lahaa codkan loo siin lahaa musharaxa xildhibaannimada kursiga baarlamaanka ee koonfurta Wajeer waxaa sidoo kale shirka ka hadlay ugaaska beesha Uwaasnoor ugaas Khaliif Cabdi Budul oo isna ku xeel dhaaraaday ahmiyadda ay leedahay isku xidhka bulshada waxa uuna meesha ka saaray inay beesha reer Uwaasnoor laba nin kala taageersan tahay waxa uuna ganafka u tuuray cod dheerna uu ku sheegay inay beesha Uwaasnoor ee ugaaska ka yahay ay taageersan tahay codkana siinayso musharax Axmed Cali Weerar si kastaba ha ahaatee loolanka iyo lagantinka siyaasadda koonfurta Wajeer ayaa waxay noqotay doorkii ay ugu kululay abeed iyadoo ay dad badan oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka taageerayaan musharaxa da'da yar ee Axmed Cali Weerar waxaana sidoo kale kadib kulankaasi la hadlay saxaafadda Jeermanka Maxamed Zubeer aadan Yuusuf Sagaar waxa uuna si yidhaahdalaysi ka mid ah sida tan xareed kalaf cali إبراهيم عمر حادلة يا علي محمد آدم جيرين وحي عن قوة هذلني إن عن سب بيانا تطلع وعديه وعن الإسحامين بندونية سدح ساعة يبر بين سدح ساعة بين لا ساعة يبر سواء بين ما كلوني أفر ساعة مشير كور رمادي يجا أي هذا البكور ري على البلد الجديدين بيش سدحات إلا بيش شرائنا إذا كل حجرين ولي جودنا أن لوش يجين قف لا وضع أو جرب تاجر يقف كدم بيه markii bishii lixaad la gaarin isbedel lagu sameeyay arintii oo nin kale la soo qaatay annagoo shirar badan soo galnay oo dad badan u tagnay oo diif tagnay oo habaas weyn reer kooshin kaliya hata aan shir u qabanay oo weligaan aan la dhihin ka bacdi intaas oo caleen aniga haddana ugu soo jeesteen waxay inaan istaqaano macrifo fiican aan leenahay in badan dalka aan wada joognay siyaasadan isku mid aan ka ahayn maanta inaad naga hor timaado oo aadna fariisiso oo aadna toogato kama aan filayn hadalkii markii calaaca saa u raacay aniga ayaa la wareegay anigana waxaan iri sheegashada aad sheeganaysaan wax maanta ka horeeya oo aniga ii soo sheegateen ma jiraan maya hadal aniga aad ii keenteen oo aad ku qanci weyseen oo adeer oo arintana jirtay waa laga jidaray garab lagu simiyaa jirtaa maya Uwaasnoor baa aniga shirci qabtay gambar baa la ii dhigay gambarkii baa lagu xambaaray guriga ugaaska ahayd waan weydiiyay ninkaan inaan la dhisay rabaan ninkii bay ii sheegeen maaxida Uwaasnoor oo laba qof ka weyn baan soo galay baan ku iri waa koow haddii sheegashadiina ay sax tahay iyo haddii sheegashadiina ay qalad tahayba waqti hadda meel laga noqdo ma joogno oo waa leyd waqtiga anigana ninkii waan waday meel hadda muddo dhow idan gaari karin baan gaarsiiyey haddii gaariga isaga inaan hadda ka degoon gaari kala noqoto فواحش عيب قبيل كتمد يا مجا حمي أنا كتمد واي سيدا درته هذا وحبل الذين مهلي كارو هجان كين كلمة نقول كفاين هجان واسمه هشام بعدو بهانتين تذكي إذن هجان من لهان وأنا كان هذا النفاس اللي نمحيونين كلام قال لي خلال إسكاء هذا هدي إذن يلين أو إذا أنت إذا كنت أنت من ضدك النبضها إذا كهرب شام حبضور بالوق ورق تضرح حبضور بالوق ورق هم المجال كعرض هم الساس واي تقل حر وحبا إذن ترميسه هل نظام كين أضوح كدونا لهذين وحكدون ورت وحنا الأحمر إنما كهوا إنتاس هذا الكبيسو إليين على البلد بحدنا كده بيه أنا نتي أمان كويلين أنت كبعدي وصوك على تجني برنامج وحلوسه بهي ومركب صوب حيسو شعب حي إن أنا إيجا عن تاجر مايا أنا ماشي أسكن لغضه
saddex sababood baan idinkaga tagay baan ku yidhi aniga kow miidan soo calaancalin dad qabiil madax oo ugaaskoodii wataa ii yimid gambarka aan ku fadhiyaa lagu xambaaray waana ku qasbanaya taladoo inaan yeelo taasaan ku qaatay waa kow tan labaad adiga maxamed subeer baa isoo bixiyaad leedahay maxamed subeer adiga ka hor buu shaleetay nin soo bixiyay uuna kaaga horreeyey tan saddexaad laba nin oo weligoodba meel ugaas maray aan marin baa kula jiro cabdi ceeb aan kuwaas u qabayaan kaaga tagay waa faarax cabdullaahi shaaribo iyo cabdimaalig baan ku iri ma qarinaya arrintaas aniga intaasaan ku iri marka maanta nafaas dhabarka inaan idiin soo duunimo adnoo aan idinka idin haayo ma jirto ogaada sidaas baan horta nimankii aniga iyaga kusoo kala dagay inagoo isa salaamayna on col isu qabin dadka inay dhibka ka daayaan hadday doorasho rabaan iyo hadday tanasulayaan taa waa mid oo waa mid aan arrintaan shirkan aan u qabtay inaanan aniga nina aanan taageeraynin nin aan taageeraynin maxamuud oo aan taageeraya ina cali weerar si cad oo bayaan ah almost lacag 1 milyan dhan baa iga baxday hadda meelaan kaga noqda ma joogo iyaga marka waan u sheegay tan labaad ugaas nuur baan la hadlaya madaxda sare ee ugaas nuurka ugaasyada unbaa iga sarreeya anaa ugu sarreeya ugaas nuur ilaa ugaasyada maahe beerka jacli iyo xeedha jacli meesha ma marayso haddii ugaas nuurnimo aad wax u rabteen oo aad qabiil aheedeen oo aad arrin soo wadeen arrintii ina cali weerar xaggiisa ay martay soo taageera haddii iidan rabin oo wiil aad wax u rabteen nin walba wiil buu haystaaye wiil wax laguma helaayo qabiilna taageero loogama helaayo tolna taageero loogama helaayo maxaa yeelay idinkii uu idinla dhashay oo walaalkiina abaaba taageeri waayay hoos haddii loo sii degataa walaal idin ah sidaa darteed 40 sano jaanis la sugaayo oo qabiilkii amsad maxamed subeer intuu shiray gaar oo iska dhigay maanta ugaas nuur hala see liiday wiil baan jeclahay inaad arrin tolka wata aad ku jebisaan waa majnuunnimo waa doqonnimo waa aqli darri wax la aqbali karana ma aha haddaad maanta yeeshaan waxaan dhiiggeenu hadda ka bacdi isugu imaanaya ma jiraan taasna waxaan leeyahay nimankaas iyaga ay dibadda jira ee gacanta bidaxda noo soo taagaya gacan bidax idinkama rabna annaga gacan midig baa idinka rabnaa inaad noo soo taagtaan ama yaraaw ama weyno iyagana arrintaas iyada ayaan u jeedinaya qoladan arrintooda hadda aan sheegay waxaan u jeedinaya nafaasku wuu ballaaran yahay shaqooyin baa jira ballanqaad baan kuu samayn doonaa 5 sano dambe waxay nagu soo aaday waa soo ku soo aaday adil uu ku ballanqaadana walaalo candhuuftaa dib u laqay looma nabcay waa laga soo horeeyay candhuuftaa dib u laqay dadka kala jebin kursiga maxamed subeer baa iska leh jidka isaga raacban iyagana leh annaga gudaha joogna hadalka annaga wuu dhan yahay annaga haddaan yarnahay iyo haddaan weynahay haddaan bilcaan nahay iyo haddaan haweenahay haddii wax laga doonay dadka iyo haddaan laga doonayna yarkaan taageerayna axmed cali mukhtaar oo weer loo yaqaan ayaan taageerayna ninna iyo waqti kale isaga dhuminin nimanka hala kala reebo nimanka ha kala geero nimankan hala yeero nimanka hala yeero ugaaska igaga dambeyn doona aad iyo aad baad u mahadsantahay intaan maqlay dibneeda bahyo waxaa sidoo oo kale la hadlay saxaafadda ugaaska beesha ugaas nuur ugaas khaliif cabdi budul waxaana ka mid ahaa hadalladiisii sida tan dadka maqlaya waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed meeshan waxaanu ku fadhinaa odayaashii ugaas nuurka ee joogay gaaris oo barkoodna kormeer ka yimid oo hadda gobolka wajeer sawd soo maray oo hadda ka yimid qaarna meeshan sii joogay labadaa nin ee hadalkeeda laydin sheegay hadda arrintooda warbixinta laydinka siiyey wax badan baanu ku dadaalay inaanu kala reebno hase yeeshee dhinac baa noo hoggaansamay laakiin dhinacii kale yaan hoggaansi yaanu ka weynay labada ninna waa kala horreeyeen oo nin sanadkii hore yaa maxamed subeer reebay oo la yidhi sanadka dambe doorashada dambaanu ku dooranaynaa maanta oo loogu duceeyey annagu maanu kala jecelayn iyaga laakiin arrintaasaa jirtay oo ballanqaadka ah ee ninkaas loo ballan qaaday ina cali weerada marka ninkanu dib buu kole ka yimid isaga ninkii xaggeenu ka yimid dib buu ka yimid marka ninkii loo ballan qaaday oo diyaar ah oo ololihii ku jira oo aanu ololadii ku wada jira annagu dhammaanta waxoo lagbalaaminba yaa ninkanu yimid hadduu yimidna dadka intuu ururiyey saasaan u socdaa ma socdanayna jeer buu noo gudbay annagu markaanu aragnay
anoo lada wiilna way isu mid yihiin aan midna aan kala jeclayn labadaba ay wiilashanada yihiin midkii horreeyey ee horey ballanta loogu qaaday baanu ayidnay ninkaasaa maxamed subeerna wataa ugaas nurna wataa ninkaa kale in cabdileyle inuu sidii doorashada lagu doonayeyna umaba socdoba oo dabeecadiisoo ma aha inuu wax dilowga dooni ciddii la arkaa wuu la dirirayaa annaguna aadan yuusuf baa hawshan nooga wakiil ahaa oo aan u diray oo madax u ahaa ololaha aadan yuusufna hadalkiisi waad maqlayseen inuu beeniyey uusan isaga ayidin annana warkiina loo keenay iyo wixii aanu ognahay waxaa weeye wiilkaa in la wato oo la dhisayo ina cali weerara haddaba waxaa weeye qoladiina dibaddu hadalka beenta waad u dhega nugushiin dad badan baan idinku jira oo si xun wax u wada arrintaas mar dambe yaan idinku soo celin loodhanin hebel baa la doontay hebel baa la doontay ina cali weerar baan annagu wadanaa ugaas nur wataa oo maxamed subeer wataa sidaas waxaanu doonaynaa inaad nagu soo ayidaan oo wixii tabartiina ee aad maaragtay meeshu kharij bay u baahan tahay aad kharij soo dirtaan baan idinka rabno oon hadhow la odhanin xagga iyo xagga midna la odhanin afmeenshaar rag dad afmeenshaarina oo xun oo yar oo dhowr ah yaa wata ninkan kada oo sharimoon buu wataa sharimihiisa ka daadsadaysaneed wiilkan kadana inuusan lacag badanin baa yani oo loo malaynaya oo ay uga weecanaya nimankaan idinkoo waa garanaysaan haddaan idin magacoono marka maanta kadib yaan war been aan laidiin soo sheegin oo laidiin soo gelinin warsayada laidiin soo gelin oon hebel iyo hebel iyo hebel saa laidiin soo odhanin war cad oo ka dambeeya oon idiin soo sheegaynaa ma jiro ee sidaa ogaada. kuwana waa qaar ka mid aha odayaal dhaqameedka beesha ugaas nuur oo si qeexan u sheegahaya cidda ay taageerahayaan waxayna uga digahayaan dadka abuurahaya kala jebinta iyo walaaca bulshada dhexdeeda inay ka waantoobaan sidii ay markii horeba kusoo sheegeen madaxdanadii iyo ugaasyadanadii umbaan annaguna haddii leedaha ayidaynaa waa sidaas ay idinku soo sheegeen markii horeba uwaaska iyo haddii leedhaaho madaxdanada uwaas nuur wuu wada fadhiistay wuuna tashaday sidaa ay uwaaska iyo haddii leedhaaho madaxdu ay idinku sheegeen umbaan annaguna yarkanaga iyo weynkanagaba haddii leedhaha ku ayidsannahay cid kaloon taageersannahayna ma ay jirto wiilka axmed cali weerara ayuu uwaas nuur iyo maxamed subeerba ay taageersan yihiin oo la wadaa wixii kale ee haddii leedhaaho meelaha aad ka maqlaysaan wax ka jira ma jiraan cid wadatana ma ay jirto iskood ayay u socdaan marka waxaan idiin sheegaynaa inaydnaa dhegaysanin wararka kutrikuteynta ee meelaha la wadwado uwaas nuur waa hal maxamed subeerna waa hal jagadana uwaas nuur baa la siiyey uwaas nuurna wuxuu isku raacsan yahay in wiilkaa maanta la doorto oo la qaado maxamed subeerna wuu ku ayiday war kale oo la idiin sheegahayaana ma ay jirto wararka kutrikuteynta ee meelaha la wadwadana ha dhegaysanina warkanagu intaasuu ku dhan yahay odayaashanada iyo wixiganagoo dhan wixii taageere ah ee aad heli kartaan waa inaad soo dhiibtaan yaan la idinku sheekaynin hebel baa kan iyo hebel baa kan iyo waxyaalaha noocaasa ma ay jirto taageero dadka dibadda aanu ka rabnaa waa inaad taageeradii haddii leedaho laydinka rabay aad keentaan dadka meesha joogana garab waxay ku yihiin oo ay isku kaashadeen yadkooda iyo weynkoodaba sidii hal meel ay u wada mari lahayn idinkana waxaan idinka rabnaa wixii taageere ee xagga kharashka inaad noo keentaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaani raxiim anigoo ah saleeye cabdullaahi geedi kana mid a odayaasha reer ugaas nuur ee ku nool magaaladan gaarisa waxaan idin caddaynaynaa in dadka reer ugaas nuur ee magaaladan ku nool ama odayaashii hore meeshan ka hadlay ay hal far yihiin halkaa wiila la wado cid kale oo hadda loo barbar diraya ama la garab ordahaya ama qas wada
shuqulkuma laha waxaan idiin sheegaynaa gudi iyo dibadba reer waasnuur wiilka maxamed cali weerar ayuu wataa axmed cali weerar sidaa darteed dadkiina dibadda iyo gudahaba joogo waxaa laydinka rabaa wax alla waxaad heli kartaan hiil iyo hooba halkaa farinaad noqotaan qaaraankanaad soo bixisaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu